الحمد لله وثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحان أنا وأفكار حسبك عدالة يدريالك كهاد ليه تعسيتي راي سن أن أدريه قويسكي يا قرابدي يا قرن كرير سومالي لاند حدو كبحي دكتور عبد الشكور شيخ علي جوهر وحان إلهي وقبريه سقا قادر الرحمن ومدي سنة يقانين مرحوم كاس وجندي فردوسة كورابيو وحكرون هالكن تعسي تيرايا له وقدريا حلدبان أحمد شيخ علي أيان له قريدي كنت مدي هو يدي وحان له هاي إلهي جندي فردوسة يدناها كورابيو انت أي كبح ذي نيلاي سمر إيمانها كسيو وحكرتون تعسي تيرايا له وقدريا أحمد حسن عافي قريدة كنت مدي وحان لها إلهي مرحومك السقاء جنديها كورابيو انت وكبح أين سمر إيمان إلهي كسيو هدي أنصر نغضه حسبك عدالة يدريالك أعد وحسبك كريهاته هذه يجيرو هذاقه وهذلا ودوله درفوينك دافها ضدك كنول قبلادن أودل إيه السلل إيه السناق إيه الصول هاد إيه شير حقوق ضد أقوبة وحن مركا كعد سنة إنها قبل كين لولا قبل إسراع سنة قلبتك إن أي كحساب تمان أفوكها كليهاته أما الويرك كليهاته أوهد لمر والبا قدوميها حسبها أعد فيصل علي حسين وانينكي شركي لندن صدحي الله وطنكي بيشي فيبروري كويري وارها لغا كعو كراستا هن وكعنو دادكينا دافها كنول او ظلمان او مانت سلوكتر ويدي او كموغدو كراستا هن وكعنا نيكا يدي ويي نينكا يتو مدحو سيدا سيدي مترين سيدا اوغيد مالين والبنين بي تفتيسو مقرتا وحانو إذا كعود سنينا إن حسبك عين كاسة وهالجمعية حقوقه مجلس يهاي عدالة يدريال إن قعن لسيبان ربنا دمان قبلك أوضل قبلك السلد إن أي دور شدا الدولة لها وسع إن أي قيم لباح كسيان حسبك أي سجاء الضوضية وهالجمعية حقه ذي أي ميل لقاري وين ميل والباب كجدا واقية إن حسبك أي سجاء قعن لسيبان وتشعل الله waxaanu ballan qaadaynaa hadii ilaahay uu nagu guuleysiyo wixii xuquuq uu leeyahay gobolka awdal iyo salal iyo sool iyo sanaag iyagoo la qaybsanaya walaalahooda beesha dhexe ah xaqooda inaan soo dhicin baan rabnaa sidoo gudoomiyaha iyaguba oo London uga yiri waar kuraastahan ka kacno oo ha looga kaco dadkaas saluugtanka qaba حقودي وحكم قيهين هدي أنتاس إنتا كدافع وحوي صعدال كيجن وحو كسر يسيهاي إن لا شرنو بدح دقبيديدا إن لا شرنو ددوينها نين الله نينكي هنغري كايو إن الدولة هوسه ديغانك كلياشا ديغانك إنو كقيب قلنيكي جعلو waxaanu idin leenahay waa idin furan yahay xisbigayagu nin alla ninkii aqoon leh aqli leh dalkiisa dadkiisaba wax tari kara waanu register garaynaynaa qof walbana uu furan yahay xisbigu reer uma xidhna inta halka ku dhaqan Somaliland daris ah waxaanu ka codsanaynaa nin alla ninkii hunguri u ka hayo gacmo furan inaan ku soo dhaweyno ayaanu jecel lahay oo wixii uu isagu rabo inuu rumaysto aan annaguna ku barbar galno oon u rumayno waxa weey 22 xubnood weey golaha deegaanka gobolka awdal iyo salal 22 ka waxaanu rabnaa إن
qayb libaax uu ka qaato xisbiga ucid inuu qayb libaax ka qaato haddaba nin alla ninkii damacsan ee asxaabta kaliya ururada kaleeto ka yacni heli kari waayo wuxuu rabo annagaa idin hayna waxaan idin leenahay ku soo dhowaada baan idin leeyahay xisbiga ucid ha kaleeto ee odhanayaay waxa weeye sida uu guddoomiyuhu u sheegay gobolku haddee in la dhowro oo laga ilaaliyo xaalufinta xeebaha somalilandka kul oo nin biidhi qaatihii uunan shilimaadka yaree la siinayo uunan ku gaboodfalin hantida ummaddu leedahay ee u dhaxeeya hantida ummaddu ay leedahay ee u dhexdaa inuu nin keliyaati ku tagrifalo looma baahna maraakiibta tirada ah ee lagu soo daayey waxaannu ka codsanaynaa dawladda in aynan marnaba sida ay ugu talagaleen aynan ugu fulayn waxaannu idin leenahay ka waantooba hantida ummaddaa leh ummadda reer somaliland baa leh ummaddaas lama rabo haddii ay tahay bad haddii ay tahay hawada haddii ay tahay dhulka in ummadda loo ilaaliyo loo dhowro baannu jecel lahay ninka ku talax tegana taariikhdaa sheegi doonta waxa aan leeyahay dawladda waa in aad ka qaadataan qaybtiinnii la idiin igmaday ee ahayd ilaalinta hantida ummadda waxaan ka codsanayaa gobollada awdal iyo salal dadka ku nooli in ay nabadgelyada ilaalinteeda ku dadaalaan nabadgelyada in aynu part and a parcel of our life aynu ka yeelno waxaannu idinku boorinayaa in aad ilaalisaan nabadgelyada idinkoo nabadda halkii lagu yegleelay ay tahay boorama waxaan maanta u sheegayaa dadka gobolka ku nool in xafiiskii ucid ee gobolka aannu furnay maanta oo ay taariikhdu tahay 15